السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي waan idin salaamay adduunka meel walba aad ka joogtaan afur wanaagsan ayaan idin leeyahay maanta oo sabti ah waxaan jeclaystay rutiinkeenii inaan idinla wadaagno saad u jeediin maanta waa maalinta caruurta banaanka ayaan usoo saaray si ay halkaasi ay uga qadeeyaan sabtiyadii waxaa waaye maalmaha kale way inooga duwan tahay qorshe badan ayaan leenahanay marka maasha allah maanta waxaan jeclaystay in aan idinla qeybsado gurigii markii aan kusoo laabanay waxaan howlaan ka bilaabnay qolka caruurta in aan hagaajiyo qolka caruurta waxaa waaye qolka ugu dhaqsida yacni noqonayo ii sheeg inuu isku qaqasmo sidaas darteed waxaa waaye waxaan jeclahay organize inaan caruurtan uga dhigo ayagana way caawinayaan maadaama alaabtooda ay tahay waxyaabahay ku ciyaaraan waa inay toosin karaan laakiin aniga kow horta markii hore waa inaan organize aan uga dhigaa si ay u ogaadaan shay walbo meesha laga rabo marka baawradan yaryarka horta igu dhibka badan aniga oo meel walba ayay galayaan haddana way yaryar yihiin sidaas darteeda waxaan jeclaystay meeshaasi korbal in aan saaro waana shay maalin walbo la isticmaalo lagu ciyaaro alaabta waaweynna waxaan sameeyaa saladahani ayaan ku qariyaa oo saladahani ayaan gelinayaa alaabta kaliya lagu ciyaara ma ahan alaab xitaa waxaa jirto waxbarasho kale aan ku dhigano alaabtaasna waxaan jeclahay asi xitaa inay organize ay ii tahay marka saladaha waaweyn oo kale waxaan geliyaa waxyaabaha waaweyn oo kale ayaan geliyaa iyo cashiradoo kale waxyaabaha aan ka barano buwaagtooda iyo halkan waxaan dhigayaa waa puzzle-kii ay soo dhidhiseen buwaagtii aan akhrisano waa kana halkan ayaan dhigayaa asxaabay weli caruurtii buwaagtii ma u akhrisaan mise waxaa waayey inta aan mashquul idinkan waa ka mashquusheen kuley wax badan ayaan ka hadlay muhiimadda ay leedahay in caruurta lala fadhiisto oo buug aad isla akhrisaan wax badan waan kasoo hadlay oo dhanka luqadda aad iyo aad ayay uga caawineysaa iyo fahankaba marka caruurtaadoo kale haddii aad rabtid luqadaada soomaaliga inaad bartid ama luqad walba ay noqotoba waxaa aad iyo aad muhiim u ah inaad sheekooyin aad u akhrisaan reer Sweden haddii aan buwaagta waxaa waaye waa free library ayaad kasoo deensanaysaa ugu badnaan 3 bil ayaad haysan kartaa kadibna waad celinaysaa marka insha Allah buwaagta waxaan rajeynayaa inaad caruurta ugu faa'iideysaan aad iyo aad ay u caawinaysaa maskaxdoodana way kobcinaysaa marka hadda alaabtii wixii markaan kala toosinay organize aan ka dhignay oo shay walbo meel loogu imaado ay leedahay dhulkii ayaan iska xaaqeynaa waan soo huufarey waana soo tirtiray haddana waa kana sidaan ayuu kusoo baxay shay walbo meeshiisa ayaa loogu imaanayaa waa meesha ay ku ciyaaraan halkan jika ayaa u taalo wixii buwaag iyo wixii cashar laga shaqeynaya iyo wixii alaabne halkan ayaan ku nidaamiyey ilmaha xataa way u fududahay hadhow waxay ku ciyaaraan shaygii inay ku celiyaan meeshii ay kasoo qaadeen marka waa kana sidaan ayaa kuley anigaan u hagaajiyey idinkan organize haddii aad haysatiin waad ila soo wadaagi kartaan haddana waxaa aadaynaa xagga jikada ayaan u carareynaa afurka ayaan buubsiineynaa sidaa idin sheegay aniga afurka xilli hore ayaan iska kariyaa jikada oo aan taagnaanayo afurka markuu soo dhow yahay aniga ma jeceli afurka inta la gaarin ka hor inaan cibaadeysan karo inaan duceysan karo inaan istighfaarsan karo ayaan rabaa oo jika inaan kor taagnaado ma rabi marka xilli hore ayaan jikada galaa xilli hore jikada markaan galo hadhow afurka markuu soo dhow yahay waxaa waaye raashinkii waan qandicinayaa marka afurkii suxuurta ayaan hal mar isla boobsiinayaa galabtana ma ugu sii jirto waxaa waaye shaqo ayaan leeyahay marka afurkii iyo cashada iyo wixii dhan inaan qaato ayaa u baahanahay marka waa kana ila socda digaaga waa 2 xabo digaag laakiin waa kala soo jarjaray 4 xabo ayay ii noqdeen dhexda ayaan ku kala qaybiyey marka wixii xawaaji aan rabay inaan isticmaalo ayaan isticmaalay waa soo marmariyey saliid ayaan wax yar soo qandiciyey maanta waxaan karsanaynaa waa baasto iyo maraq oo aan ka sameeyey digaag oo xawaaji kaari leh ayaan rabnaa insha Allah inaan isticmaalno waa very easy cuntadan dhan waxaa laga yaabaa inaan ku kariyey 20 daqiiqo marka baastada dabka ii saaran tahay digsiga kale waxaa waa sharbadii ayaan kusii diyaarsaday digaagii markii aan rogrogay oo bislaadane waan ka dejiyey biseel kale ayaa usii dhiman sidaas darteed waxaa waaye waqti badan inuu kaa qaato maahan
waxaa loo baahan yahay kaliya inuu kalar u yeeshto. Haddana marka sooska ayaan diyaarsanaynaa. Caanaha waxaan isticmaalayaa Mortlognis Grede ama caanaha u taqaanaan cooking creamka ayaan isticmaalayaa iyo wax yar oo yaanyo ayaan ku daray. Intaas ayaa hadda ku daray. Waxaa kaloo ku daray xawaaji kaari, kalarka si uu ugu yaali iyo carafta ayaan ka rabaa. Marka waa u qiyaasanaysaa. Wax yar oo ugu yaraay waan ku darsanayaa. Digaagii markuu ii soo gaduutay waxaan sameynaa karitaan kale maadaama u baahan yahay oo ii sheeg maraqa aan rabo inaan la huuriyo. Dabka ha kusii dheerayn haddii kale qaleel ayuu noqonayaa. Marka hadda waxaa kaloo sooska saa u jeedin waa biyo. Biyahaas oo kale ma jeceli markuu yahay maadaama aan rabo baasto in lagu cuno. Marka waxaan sameynayaa qaando warango ayaan ku daraa. Warangada maasha Allah way adkeynaysaa. Bur xitaa waa la isticmaali karaa laakiin ani warangada ayaan ka jeclahay. Filfil ayaan ku daray iyo wax yar maraq digaag ayaan ku darayaa iyo waxaa kaloo ku darayaa far iyo suul oo sokor ah, wax yar oo sokor oo meel dheer ah. Markii uu soo karkarayaan arkay waa kana digaaga ayaan kusoo celinayaa. Digaaga markii inta ayuu kusii karsamaa waa sii huurin doonaa. 4 xabbo digaagi ayaan kusoo riday. Qudaarta rabta ayaad isticmaali kartaa. Waxaa waaye yaanyo la qalajiyay taad arkaysaan aad iyo aad u macdahay dhanaan ayay ka dhigaysaa. Wax yar oo yaanyadii kaleeto rooroneed aan soo gogooyay ayaan kusoo daray iyo wax yar barbarooni ah. Qudaarta rabta ayaad ku darsan kartaa. Sooska waan dabooleynaa, waa huurinaynaa kadib maasha Allah waa inoo diyaar. Haddana baastadii ayaan soo miirayaa. Hadda waxaa la gaaray markii xilligii aan diyaarsan lahay afurkii aan qaadan lahay iyo casho waxaan ka dhigan lahay. Marka dhaladaas waxaan ku ritay wax yar oo sambuus iyo waxaan ku riday spring rolls aan ku ritay. Halkan waxaan ku diyaarsanayaa waa baastadii iyo digaagii aan ugu talagalay oo maraqa aan ka sameynay, sooskii aan ka sameynay ayaan dusha ugu dari doonaa. Waxaan kaloo qaadan doonaa wax yar oo shurbada aad iyo aad ayaan u jeclahay inaan ku af bilaabo. Dhala ayaa asina ku shuban doonaa wax yar salad wax yar oo fruit ah iyo timir. Intaas ayaan insha Allah qaadan doonaa. Marka shay walba waxaan u baahanahay inaan ku soo rido dhaladiisa inaan ku soo rido kadibna boorsada ayaan ku ridan doonaa. Marka insha Allah asxaabay muuqaaladeena haddaa ka heshiin waxaan rajeynayaa inaan like iyo share iyo commentiga aadan nagala baqaylina insha Allah. Waxyaabaha aad jeceshiin oo kala channelka inaan kusoo kordhiyana waad nala wadaagi kartaan. Barnaamijyadii caruurtii ma noo soo celiyaa mise waxaa waaye waa ka weynaateen. Marka insha Allah ila soo wadaaga commentiga. Haddana waa kana afurkii oo dhameystiran inoo diyaar ah. Caruurta ayaga casho ayay u tahay, anagana afur ayay inoo tahay. Mar walba waxaa waaye waxa afur anagaan ka dhigano ayaga casho ayay u tahay. Maadaama 5 maalmo kale iskuulka ay ka soo cunteeyaan oo dhowr cunto ma kala kariyay. Haddana waa kana alaabteena ayaan diyaarsanaynaa. Boorsada ayaan ku ridanayaa. Insha Allah asxaabay kulan dambe oo xiiso leh. Inta dambe aan kulmeyno khayr ayaan idin dhaafay. Afur wanaagsan waan idin leeyahay. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.